So, video ugu dambeeyay waxaynu ku soo sharaxnay qaabkii aad u abuuri lahayd git commit, qaabka aad commit u samayn lahayd oo aad iskugu bedbedeli lahayd ama traversing u samayn lahayd commitkaagii kan ugu dambeeyay maaha kii ugu horreeyay oo initialkaada qaabkaad ku booqan lahayd aan soo sharaxnay. So, ka waran haddii aan rabo in aan commitkayga ka laabto ama undo aan dhaho, isbeddelkii aan sameeyay inaan ka laabtaan rabaa. So, laba qaab u samayn karnaa sidaas. Qaab koowaad wuxuu yahay in isbeddelkii aan sameynay inaan undo dhahno, inaan cut gareyno, isbeddelkaan aan sameynay inaan cut gareyno oo aan abuurno new commit inaan abuurno oo aan dhahno get add commit. So, sidaas aan ku abuurno. Ama maxay GitHub ama Git wuxuuna siinayaa feature loo yaqaano undo commands uuna siinayaa Git oo loo yaqaano Git reverse ID. Reverse ID-gana waa inaan u sheegno commit ID-ga aan rabno inaan reverse gareyno oo aan ka laabno. So, reverse-gan wuxuu sameynaa isbeddelkii uu la yimid last commit uu la yimid inuu micnaha ka laabto uuna abuuro new commit cusub inuu abuuro. Haddii masalan meeshan waxaan ku haysanaa waxaynu ku haysanaa yani last commit oo version-ka 6aad oo 5aad. So, marka aan new commit abuureyno micnaheeda ama reverse aan abuureyno waxay noqonay in micnaha meeshan oo last commitkaygii pointerkii uu hide gareynayay oo micnaha yani uu tilmaamayay pointerkeena last commitka uu yani uu tilmaamayay in laga laabto oo undo la dhaho, new commitna la abuuro. Maxay ka saacidayay markaas micnaha meeshii aad micnaha isbeddelkii haddaayay oo paragraphkii in aad micnaha cut gareysid then aad dhahdid get add oo aad sheegtid filekii then git commit aad aadid intaas command aad execute gareysid waxaa kuu qabanaya get reverse ID qaabkee u shaqeynaa marka. So, waxaynu rabnaa in aynu reverse gareyno last commitkeena waa kan aan last commitkeena oo pointerka uu tilmaamayo then ID-giisa qaadan doonaa waxaa leenahay control C then waxaa dhahdaa simply get reverse then ID-ga baasena. So, waxaa nooga baahnaan doonaa in aynu ku darno message. Okay. So, meeshaan aragno micnaha get reverse marka isticmaalay waxaa baxay micnaha waxyaabihii ugu dambeeyay oo isbeddeladii aanu sameynay meeshaan waxay noqotay modified ujeedin oo micnaha isbeddel inuu meesha ka imaaday waa ujeedaa micnaha anagoo dhahnay ee la mid ahayd in paragraph meeshii yaalay anagoo tirtirnay oo dan oo new commit abuurnay ayay la mid tahay. So, sidaas ayuu u shaqeeyaa get reverse